ومركي كوباد أن تشجع برنامج قريب قلب مركا وحيتها هي فرحة جارة وحن ربنا أن أذيع إذا كل هذا ما سمتهين سيدات نوصل ويسين يسيدات دوين كل يوم معها قريب توتهين وذا شيء سيجان ربنا إنه جرانتيس أي صعوته أنا مرنا استاجن وذا شيء سيجان بلابه إنه أنا ما أهمد أنا كنقول أمانة إياه sida laga dhawaajiyay iyadoo la isticmaalayo erayo kala duwan buugagan marka la turjumayay marka la dhalinayay fikradan horta buugaga waxay martay geedibay martay fikradu qoraal Soomaaliya oo si Soomaaliyeed iyo waayo Soomaaliyeed ka fikiraya kuna fikiraya ayaa si fikrada u cabiro af shisheeye oo afkii gumeysiga kamid adeegsaday وافك فرنسيس كأحد صالحين كدبنا قراءة كلا أيا أفكار أفكار جوميسيا كمدة هذا يكسر سوء إنه كلا ترجمه لبدي جوميسيا ملها كلا فجاء كدبنا أفكار صدحات وأنا جاهبا من صومالي هذا يكسر ما كان واحد مركي كوبادي أن مثلا كيرف قراءة كديجا مرتو ترجمات دي ترجمة قف صومالي markii aan turjumay buugi Dr. Maxamed Aadan Sheekhay waa inoo Muqdisho aftalyaani buu ku qoray kadib af Ingiriisi baa laga dhigay kadib baan Soomaali ka dhigay qofkuna qof Soomaaliyeed buu ahaa waayo Soomaaliyeed ka hadlayay si Soomaaliyeedna u hadlayay marka waxaan isweydiiyay markii koobaad qof Soomaaliyeed dib ma loo Soomaaliyeyn karaa qofka Soomaaliga dib ma loo Soomaaliyeyn karaa haddaan dul dhigo tusaale aan ka mid ah waayo aragnimadooda turjumida waxaan af Soomaali ka dhignay Frans Fanon oo ku qoray af Faransiis kadibna af Ingiriisi laga dhigay baan ka sii dab qaaday aan Soomaali ka dhigay marka Fanon waan Soomaaliyeynayay markii koobaad oo intaynu ka hayno warkiisa af Soomaaliga ma aqoonin nin kale oo mudo Cabdiraxmaan Barkhad Good la yiraahdo ayaan rabaa inaan dib u Soomaaliyeeyo laakiin isagu waa Soomaali marka taw ilaa intee baan ku guuleysan karayaa in aan Maxamed Aadan Sheekh iyo Cabdiraxmaan Barkhad Good aan dib af Soomaali uga hadal siiyo iyagoo aan af Soomaali ku hadlin markii koobaad taas baa hay su'aasha aan maskaxdaydu ay xoogay ku legdantay weliba aanan jawaab u haynin maskaxda waa su'aasha waxaan idin soo dhex dhigayaa bal si aad igala fikirtaan way taas waxay nagu celinaysaa waxa maanta aynu u naqaano imperialiyadda afka ama linguistic imperialism oo ah nidaamyada kala duwan ee dadka loo gumeysto ama loo gumeeyo oo erayga Soomaaliga ah gumeysi wanaagiisa waxa kamid ah inuu si fiican u qabanayo sida uu ciidan shisheeye u gasho ciidan sokeeyaha way gumeysaa oo gun bay ka dhigtaa gun u taagan wax kasta oo xun ay ka dhigtaa sida af Carabi isticmaashay ma camirto isticmaar ma aha Soomaaligu qofka Soomaaliga erayga bixiyay dadka Soomaaliga erayga bixiyay way garanayeen in aanu shisheeyahan inagu soo duulay aanu dhulkeena camirayn oo dhulkeena aanu ahayn dhul laga guuray oo banaan oo gawaan ah ee uu dhul camirnaa biinayo hadaa wuxuu balaag dagalkii xalnaa waxay la fadaadiyeen balaag dagalkii xalnaa waxay la fadaadiyeen marka gumeyntaas ay qayb ka tahay in afka la iska abaaro qofka ugu muhiimsan Afrikaana ee arinta aad uga hadlay waxa weeyaan marxuumkii dhawaan geeriyooday Guugi wa Thiong'o ee reer Kenya oo buugiisa uu mid kamid ah falanqeeyaashu soo hadal qaaday dib u xoreynta maanka ama decolonizing the mind ayuu si fiican uga hadlayaa waxa xiisaha hadaba waan rabaa inaan kamid noqoto wada sheekaysigeena qoraalka buugiisaas siibaa cutubka afraad u dambeeya oo hadda xasuustaydu aanay khaldan boga 87 ka bilaabmayay wuxuu kaga hadlayaa abwaan Soomaali ah oo Maxamed Cabdilla Xasan ayuu soo hadal qaaday xoolaha Maxamed Cabdilla Xasan af Soomaaligu ku gabi jiray gabiya Soomaaliyeed buu ahaa Soomaalida miyiga joogtay ee ari jirka iyo gal jirka ahay way qaybsan tahay wayna fahansan tahay gabigiisa laakiin qof kale oo dadka u dhashay Soomaali ah oo laakiin af Ingiriisi ku gabiya ama afkii shisheeyaha ku gabiya
reer miyiga Soomaaliga ay ma fahansana marka tusaalaha aanu bixin aan bixinayo raacin karayo waxa kamid ah waxa isbarbar dhigtaan ina Cabdullah Xasan iyo ina Togone imse qof halka fadhiya ina Togone yaqaan ko imse qof halka fadhiya ina Cabdullah Xasan yaqaan ina Togone ina Cabdullah Xasan waxay ku sheekayeen xaaladda Soomaalida laakiin midna wuxuu ku gabiyaa af Ingiriisi midna wuxuu ku gabiyay af Soomaali waliba wala ismageyde ina Togone waa nool yahay waa taasta uu taabanayo Gugi wa Thiong'o uu leeyahay qofka Afrikaanka ah ee gabyaaga Afrikaanka ah waa qofka ku gabiya af Afrikaan marka gabyaa kalima qoraaga Afrikaanka ah suugaanyahanka Afrikaanka ah fanaanka Afrikaanka ah waa kan adeegsada dib soo isu xoreeya marka koobaad oo hawlgalka dib u daraynta ah ee aynu rabno inaynu ka sheekaysano ee wada sheekaysiga inuu ka mid noqdo ayay ka mid tahay xalban magaalada Hargeysa qodob dib u darayntaas ku saabsan oo carinaya ka yara taabtayo midaan neerfayaal baan ku istaagay aan muuqanin kolka waxayna iga ahayd inayna iga tahay inaynu oo ay doctorka ka tahay oo cali ka ahayd oo dhamaanteen ay ka tahay inteena ku foogan qoraalka ama ay akhriyaan ama inay qoraan ay ka tahay in mas'uuliyiinka ay ka mid noqdaan ajendayaasha ummadeeda inoo yaala ee jigjiga lagaga hadlo Hargeysa lagaga hadlo Xamar lagaga hadlo Djibouti lagaga hadlo Gaarisa lagaga hadlo qurbaha lagaga hadlo meel kasta oo Soomaali joogto lagaga sheekaysto halkii ajendayaasheenu noqon lahaa qof baa la soo qarxiyay iyo reer hebel baa mid reer hebel u jawaabay iyo caaqil iyo suldaan baa la kala iska lusho la kala qabanaya iyo qof siyaasi oo mid siyaasi oo kala eeganayo oo ay biyaha hoostooda ay iska haraatiyeen halka kaasi ajendayaasheenu noqon lahaa midda ajendayaasheenu inay ka mid noqdaan baa ka haboon warweynu dadnimo tiranaye sidee baynu dib isugu dadaynaa taas bay ka mid tahay markaa inuu qofku ku baraarugo marka koowaad inuu dhammaanteen nahay jiraha cusub dhammaanteen jirayaal cusub nahay dhaliil ummaddu leedahay haddii qof ummadda ka mid ahay tilmaamo micnaheedu maaha inuu bannaanka iska taago dadka caayayo wuxuu leeyahay sidan baynu nahay maxaa inooga meel yaalla arrintaas hadduu qofku taa yidhaahdana midha haddii la dhibsado waxayba muujinaysaa saxnimada qodobkiisa safarkan uu galo jiraha cusub ee waddanka dhexdiisa ku galo ee ku dambeeyo qurbaha hadduu qaxo midna ogaada oo qaxu ma aha inaad dalkaaga ka tagto keliya qurbanimada ugu horeysa waxa weeyaan inaad dareemi weydo hoyba meelba inaad barkan karto Edward Saciid xasuus qorkiisa wuxuu bixiyay out of place waxa weeyaan waa haadgeed waayey ayuu xasuus qorkiisa u bixiyay out of place kharij al makan waayo waa qofku Edward Saciid tusaale uu siinaya waxa weeyaan magacayga koobaad waa European magacayga labaadna waa Carabi diigan waa Falastiini buu leeyahay laakiin baasaboorkoodu waa Mareykan waxaan ku fakaraa oo ababintayda ka mid ah af Carabi buu leeyahay laakiin waxaan wax ku cabiraa oo sida ugu haboon matali karaa af Ingiriisi yaanahay markaa halxiraalaha ugu adag waa kaas weeyaan afka qalaad aadan lahayn waa qayb ahaanshahaagii ka mid ah oo kaa go'day ayuu galaa halkeeda meel bannaan ma galo afka qalaad af qalaad haddii aad ku ababto wax ku baratay ma gelayo meel bannaan oo iska taallay meel adiga kaa mid ahayd oo ay ahayd inay kaa sii mid ahaato ayuu ciriirsadaayo oo uu galaa waxaan u baahannahay inaynu ku nidhaahno war ama kirada bixi ama noo dhaaf jirkayga qaybihiisa aad baad u mahadsantahay